burburka kelyuhu wuxuu ka bilaabmaa caadooyinkan yaryar ee maalinlaha ah. Calaamadaha hore iyo talooyinka ka hortaga waa inaad ogaataa. Inteena badan kama fikirno kelyahayaga ilaa ay dhibaato jirto. Waa kuwan qabsashada, dhaawaca kelyuhu badanaa kuma qayliyaan dareenka marxaladaha hore. Si aamusnaan ah ayay u soo gurguurtaa, iyadoo muujinaysa calaamado aan qarsoonayn oo keliya marka ay arrimuhu mar hore sii xumaadeen. Iyo naxdinta dhabta ah. Qaar badan oo naga mid ah ayaa si aan is ogayn u waxyeelooba kelyahayada maalin kasta annagoo adeegsanayna qaar ka mid ah caadooyinka caadiga ah. Marka haddii aadtan ku akhrinayso kafeega oo aad hal gacan ku jirto oo lugahaagu isdaafayaan adiga oo aad u daawanaya bandhig kan adiga leh, ku hay muddo aad u dheer. Waxay u badan tahay inaadtan samaysay marar ka badan intaad danaynaysay inaad qiraato inta lagu jiro wacdheer oo soom ah, ku xayran taraafikada, ama aad caajis u ah inaad ka degto sariirta. Laakiin si joogta ah dib u dhigista nasashada musqusha waxay kordhin kartaa cadaadiska kelyahaaga iyo kaadihaysta, taas oo wakhti kadib u horseedi karta caabuq, dhagxaan kelyaha ama xitaa dhaawac wakhti dheer ah. Iska ilaali calaamadahan hore. Dareen gubasho markaad fiiqan tahay, kaadida oo soo noqnoqda ama xanuun leh, ama kaadi daruur leh ama uur xun. Dhagayso jirkaada. Daqiiqada aad dareento rabitaanka, tag. Sidoo kale, si fiican u fuuq bah si kelyahaagu ay si hufan u nadiifin karaan sunta. Cunista milix badan. Waxaa laga yaabaa inaadan milix ku ruxin cunto kasta, laakiin haddii aad ku shubanayso jajabiyada, maraqyada baakadaysan, baasto degdeg ah, ama qaadashada, waxaad u badan tahay inaad isticmaashid si ka badan soodhiyam inta ay kelyahaagu xamili karaan. Qaadashada milixdu waxay kordhisaa cadaadiska dhiigga iyo sare oo aan la kontaroolin ayaa ah mid ka mid ah dembiilayaasha ugu waaweyn ee ka dambeeya cudurrada kelyaha ee dabadheeraada. Bararka anqawyada, gacmaha ama wejiga, madax xanuun joogto ah iyo akhrinta dhiig karka ayaa ah calaamadaha ugu horreeya ee ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato. Ku xadid sodium in ka yar 2-3 eber maalintii, qiyaastii 1 qaado. Daadi alaabta la warshadeeyey oo ku dhadhami cuntadaada geedo yaryar, liin ama xitaa toonta. Isticmaalka xad dhaafka ah ee xanuunka baabi'iyaha. U soo saar xanuun baabi'iyaha madax xanuun kasta, dabar xanuun ama xanuunka caadada. Nsaydyada sida ibuprofen iyo dialofenac waxay dhaawici karaan kelyahaaga haddii si joogto ah loo qaato ama iyada oo aan la helin fuuq habboon. Waxay yareeyaan qulqulka dhiigga ee kelyaha, taasoo u horseedi karta dhaawac wakhti kadib, gaar ahaan haddii aad mar hore fuuq baxday ama aad leedahay arrimo kale oo caafimaad. Ha iloobin calaamadaha sida lalabo ama matag, kaadida oo hoos u dhacda iyo daal ama hurdo. Isticmaal xanuunka baabi'iyaha si yar. Had iyo jeer raac qiyaasta lagu taliyey oo cabbiyo ku filan. Haddii aad marar badan u baahato, la hadal dhakhtarka. Waxaa laga yaabaa inay tahay wakhti aad ku sahamiso daaweyn kale. Dhaqdhaqaaq ku filan oo aan lahayn maalin kasta. Maratoonyada Netflix waxay u fiican yihiin nafta, laakiin aad uma badna kelyahaaga. Fadhiga saacado badan oo leh dhaqdhaqaaq jireed ugu yar waxay hoos u dhigtaa wareega, waxay ka qayb qaadataa kororka miisaanka, waxayna kordhisaa khatarta sonkorta dhiigga oo sarreeya iyo cadaadiska dhiigga, labadaba sababaha ugu horreeya ee cudurrada kelyaha. Fiiro gaar ah u yeelo calaamadaha aan muuqan sida murqaha oo murqaha ah oo ay ugu wacan tahay dheelitir la'aanta elektroolitka, bararka indhaha agagaaraha iyo dhibaatada hooga saarista. Dhaqdhaqaaq badan uma baahnid hubin jimicsi qurxoon. Socod degdeg ah oo 3 daqiiqo ah, 1 daqiiqo fidsan inta lagu jiro nasashada shaqada ama xitaa qoobka ciyaarka qolkaaga ayaa la tiriyaa. Kaliya dhiigaas ha socdo. Cabitaanka sonkorta leh oo aad u badan. Caadada colaga maalinlaha ah, shaa barafaysan ama cabitaanka tamarta marmar. Kaliya kuma kordhinayaan khadka dhexda, waxay sidoo kale canshuurayaan kelyahaada. Sonkorta xad-dhaafka ah waxay u horseedi kartaa cayilka iyo iska caabinta insulinta, kordhinta khatartaada nooca 2 ee sonkorowga iyo dhaawaca kelyaha. Kaadi soo noqnoqda, gaar ahaan habeenkii,
miisaanka oo yaraada oo aan la garanayn iyo qallayl maqaarka cuncuna. Iska yaree cabitaanada sonkorta leh oo dooro biyaha qumbaha, shaaha geedaha aan la macaanayn ama biyaha lagu shubay reexaanta, liin ama qajaarka. Kelyahaada iyo dhexdaada ayaa ku mahadin doona. Calaamadaha hore ee xanuunka kelyaha waa inaadan iloobin. Inta badan arrimaha kelyaha waxay ku bilowdaan si tartiib ah oo aamusnaan ah. Laakiin jidhkaagu wuxuu ku siinayaa tilmaamo. Ha iska indha tirin xumbo-xumada ama kaadida xumbada leh, calaamadaha luminta borotiinka, cagaha oo barara ama anqawyada, daal badan ama ceeryaamo maskaxda, maqaarka qalalan ama cunrinka, ama isbeddelka qaababka kaadida, midabka, soo noqnoqda ama degdega. Haddii aad si joogto ah u aragto in ka badan mid ka mid ah kuwan, waa wakhtigii aad kelyahaaga hubin lahayd, gaar ahaan haddii aad leedahay taariikh qoys oo sonkorow, dhiig-karka ama cudur kelyaha. Habnololeedka kalyaha saaxiibtinimo ee isbeddelka. Halkan waxaa ah dawiro degdeg ah oo aad samayn karto laga bilaabo maanta. Ku beddel milix, miis geedo iyo liin. Dadan weyn cadaadiska kelyahaaga oo yaraada. Hidrate ka caqli badan. Ha ku shubin biyo kadib cunto milix leh, meel dhig qaadashadeeda maalinta oo dhan. Jidhkaaga ka dhig mudnaantaada. Kac oo fidi saacad kasta, xitaa haddii aad ku dhegan tahay miiska. Kelyahaagu maaha kuwa cajiib ah. Ma bari doonaan dareenka. Taasina waa sababta dhabta ah ee aad u bixinayso wax ka badan. Waxay u shaqeeyaan si adag maalin si ay ku sii hayaan nolol iyo caafimaad. Oo beddelkeeda, kalya waxay u baahan yihiin inaad ka boodo milixda dheeraadka ah, in yar u dhaqaaqdo, joogtid fuuq baxa oo aad ku fududayso xanuun baabi'iyaha iyo soodhaha. Uma baahnid inaad dib u habeyn ku samayso noloshaada. Kaliya samee dhowr caadooyin maalmeed oo waxaad macno ahaan ku dari kartaa sannado shaqo kelyo caafimaad qaba mustaqbalkaaga.